hay'adaha nimay hortaan markaan dalkan xaaladiisa si fiican u qiimeeyay waxa ay soo baxday inaan madaxweyne iska noqdo waliba idinkana waxaan idin kala talinayaa qabyaalada iska dhaafa waa qurune oo haddaydnaan iska dhaafayn qabiilkayga noqda waxaa tahay persona non grate mana tihi shakhsi u qalmaa hoggaanka dalkan waryaalahan arrin waale hay'adaha badcabnay badqubnay badna waan ku maydhanayay baranay midnimadeenna oo u soo baraarugnayay baabay qaadayaan qoladan United Nationskiina waxay qaadayaan war maanigaan roor ahayn marimadii ka soo dhacday baan lu sheegahayn Somalilandna waxay leedahay ergey gaara oo annaga noo khaasa ana loo soo magacaabo ilaa u taag helimayno kolba mid ay malmaluuqsadaan eryaane warana aydan waale hay'adaha arciil day arceeb day cidii oo loo noqon doonin day oo cadow baxsaday oo la ceeriyaday warnimayo horaad u waaleydeen ayaan leedin waaline waxa la yiri dalkan kama shaqayn karo qofkii wada shaqaaqayna shatigii Nicholas Haysom iyo shaarkii laga jeexay shakhsigii bedelayay u tahay sheed ku soo go'an sharci baa xafiiskii dhaxyaa loo sharaxayay faragelin shisheeyana rag waa inuu sharaystaaye ku shukriya hadduu dawladnimo galeeshinkeedii tanana qornahay Somaliland ninka shaqada waayay adeer hana loo soo magacaabo annaga ha shaqaystee waa bil camale war nabadii nool intay jirtay madaxweynihii Hirshabeelle cusub daadka qaaday gudoomiyaha gobolka Taabid waa la tuuray gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari waa la iri madaxweynihii Koonfur Galbeedna Shariif Xasan Arka loo tuuray wasiir badan ay kamid yihiin Juxay Yusuf Garaadna urda lagu qaaday urgigii qaramada midowna Haysom Shaarbaha laga fiiqay kadibna waa la musaafiray waxa la ribaayada nool dhaaf marka waxaan leeyahay cidii isku taagtaa ka fiirsatay war nabadii nolol intaasoo shaqaha ay qabatay haddana 15 bay weli ma dhaafin war Yusuf Garaad wuxuu yiri dawladda rabitaankeeda hadii qaramada midowda ay ka aqbashay yay ismahadinin ha isu diyaariso saameynta ka dhalan doonto warnimada waxa la yiri waayahan ba hadal beenahay noo harfurayeen hadday timid xaqiiqdii hartiyo hubantideedii ninkii hawl ka sugayo kulay haysan watig horamaylan aray lanki daanjar aanu ku fadaw fool yawala tusaka guursato warnimada waxaan leeyahay daandaan siyo idib dariyo dulligii isticmaalku waday haddaan diidno bulshooy dan guud u jibaysanahay daaim baa mahad iska leh qorsha wadataa saaxiib hadalkaadan ka dareemay wardada umayla aray adduunyadu dulun iyoonay daalunga dareera lamadii is dooratoon walshal dile hooba doggii isku buriyni oo isku duwanaani daa'ir rahmaan ee mahad leh inkastoona luuqadaad ku hadlaysa fahmin adiga laftaadu qorshaad wadataa anigu waxaan leeyahay qisada aad aragtaaba qadartii rabbiga iyo quwadday ku tustaa warnimada wariya dhammaantiis xogayaha guud ee qaramada midoobay war buu soo saaray wuxuu yidhi Nicholas Haysom waan ku kalsoonaa shaqada uu hayana khibrad buu u lahaa persona non grata looma isticmaali karo wakiilka qaramada midoobay waxa loo isticmaalaa safiirada dawladuhu dirsadaan marka waxaan la yaabana midka lagu soo bedelayaa muxuu uga duunaan doonaa Antonio Guterres waan ku kalsooneen hadalkiisana waan soo dhaweynaynaa cid uu noo keenana waan ciiri doonaa haddii ay noqdaan sidii Haysom aryadaha waxa la yiri bilcaantii xiska beeshay oo dawla buubo woo beegta waxaan ka wadaa inkastoo go'aankaynu kadis degdega ahay haddana haddii la aqbalay inaan dawlad qotontanahay amahaas iiga cadow waa u bega war ninka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa shalay fadhi ku dirir soo fariistay waxa uu yiri Haysom inuu baxo inuu khayr baxo ayaa ii dhaantay nin kale wuxuu yiri war qaramada midoobay ma bixine Haysom kaliya baxay markaas wuxuu yiri anigu dawladda dhan ha baxdo ma dhihine khayr kaliya ha baxaan iri hadda ma waxa la beesha lixaad qaranka matalaadku ma laha warnimayo waxaan maqlay gaalkaayo waxa lagu sameeyaa film la yiraahdo ar itaabo anigu waxaan leeyahay nin qorigu jabiyo qacadiisa kama naxo warada la dhigaysa gaalkaayo marka hal gudoomiye u yeeshaan naga nala soo hadla markaas Hargeysa iyo Muqdisho hal madaxweyne ay yeelan doontaa warnimada doorashadii Puntland musharaxiintii tartamaysay shuruudaha lagu xiray waxa la yiri waa inuu 40 sano ka weyn yahay musharax waa inaan maxkamadda dambi ku helin waa inuu $20,000 oo isdiiwaan gelina bixiyaa shuruudaha markii la soo saarana
waa kuwii 30 ahaaye kala bar baa ka baxay musharaxnimadii war aan helmaynku baha waaye aan haano dambiile oo isaagal iyo madbirkaansay madaw ku hiiray waan rinjeeya ka jaraana warnimada musharaxiinta Puntland shaybaarkii lagu baaray wuxuu sheegay inay laba qaybood kala yihiin Cabdiweli Gaas iyo Juxa iyo waxay wataan waa dhinac afar kale shaybaarku sheegay iyo madaxweynuhu hore Faroole iyo waxay wataana waa dhinac hadda baaristii la sameeyay qaar kamida jeebabkooda nabad iyo nolol baa laga helay marka waxaan anigu ku darayaa gudoomiye dhooba la yiraahday shala doorteen jamiita iyo dhagaxna madaxweynaha ku xigana ka dhigteen si uu dalku u dhismo war musharaxiinta waxaa ku jira jabiye waxay dhisaanay isaga jabinaya warnimiyo aan may koobsa gabe madaxweyne haafooble labjay libadi inoo buglenka darama hirshabeelle madil labjay libadi nibadi loola ka darantay aryaxaad hirshabeelle ka sheegay koonfur galbeedba iyadoo Jubbaland ku darsamay rabta in laga soo celshaa lafta gareen la geeyo asaa nabadyo nolol lagu soo celshay warnimada waxa la yiri fakarkii qaldani unka waa kala fogeeyay siyaasado fashilay oo qabiil fuushan guradiisa waxba hawga faalayn bulshadu fiirin mahayaan war aseed Sheekh Axmed Madow maanta dawladus military u sameey ma ka cararteen magaaladii war wali buu ma soo gaaran warka sug Kismaayo wuxuu isdaw dhigi waxa la wixii Cabdibil loo ku jiray wuxuuna yiri dawladuska military waa mid Jubbaland u gaar ah hal askari dawlad Soomaaliya kuma jiro anaga isku tashanay war Axmed Madow wuxuu rabaa inuu yiraahdo Bu'aalan qabsaday dawladda Soomaaliya waxay rabtaa inay Bu'aala qabsato oo doorashada Jubbaland Bu'aala ka dhacdo aryaadaha war ma haysiina cudurka maamul goboleedyada hay jira aqalka sare nooga dhacay maamul goboleedyadu waa kuwa dhaheen wada shaqayntii dawladda waa hakinay aqalka sarena wuxuu yiri wada shaqayntii golaha shacabka waa hakinay waa la wada hakiha muga war aqalka sare odayna wadana madax ka ahay ama laga dawgeey war odayaalka walaha dabrooga ama dheerasiin ariyan war oday madax cad oo waayay araga dawladda Cabdi Xaashiya uga jira marka waxaan u malaynayaa in odaga loo socdo meesha laga saari rabo war ma fiqiga ku bedel rabaan cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer miya muga war waqtigii waayeelka lama jooganiyo waqtigii ciyaalkana lama jooganiyo persone non grado persone ningeesale wareedaha shaqada wadanka taala waa tiro badan tahay adinku maxantaad ku yeelateen dalka maxaad u qabataan lagu hanta lagu xasuustay dheheen warniyo war ba haysaano dhowdhowdunba meesha ka haysaane insilqaankii Amazon baa imika dhinaca ka gashay aryaadaha dalkan unun kaale cid dulmi ka haysan inaan diidno la daqdaqro xaqan u leena waraa dadka maxaa loo dilay qofkii yiraahdo ma la cayrinaya waliba in la dilay hadaas xaanan u sameyn sojamajaariji bajaariji war Amazon tu waa dagarkan baahan kan halo isay gaba war laga tagaa taaniya bandil ma disidii waraa gara naga taga meel bugta tage